Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta waxaan soo gaarnay casharkeeni saddexaad qeybtiisa 15aad. Barashada Patent B waxaan uga hadlaynay señale de divieto, signalada noo sheegaya wadadaas wax ka mamnuuca ama gawaarida ka mamnuuca. Okay? Waxaan ku fasiri doonaa af Soomaali. Waxaan filayaa wax badan ka faa'iidi doontiin. Asxaabta cusub way nagu soo biiri karaan. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Aan bilaabana casharkeen. Il segnale raffigurato vieta di entrare in una strada accessibile invece dall'altra parte. Wuxuu yiri beer waaye. Il segnale raffigurato signalka meesha ku sawiran vieta wuxuu mamnuucayaa de entrare in la galo wadadan in una strada wadadaas accessibile oo laakiin suurtagal ama la ogol yahay in laga soo galo invece sida si kale markii loo feego dall'altra parte dhanka kale beer waaye. waayo signalkan markaa aragno wadadaas waa laga soo bixi karaa laakiin lama geli karo. Okay? Beer waaye. Il segnale raffigurato indica che possono passare agli autocarri con carico alto 3,50 metri dal piano del cassone. Allora, autocarri con carico alto 3,5 è vero waaye perché autocarri macal rarkiisa haddii lagu daro oo dhirka oo qaybta laga bilaabo dhulka ilaa iyo meesha ugu soo korayso haddii 3 mitir 50 ay yihiin way mari karaan. wixii ka badan oltre superior ma mari karaan. Okay? Alright. Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sorpasso precedentemente imposto. Vero waaye perché marka hore signalkan gawaarida waaweyn oo culeyskooda uu ka badan yahay 3.5 tonelaad inuu gawaarida kale baaso ayuu ka mamnuucay laakiin hadda fiina waaye. Signalkan wixii ka dambeeya gaariga weyn xataa baaso uu samayn karaa. Okay? Vero waaye. Il segnale raffigurato non vieta la fermata. Signalkan meesha ku sawiran nagama mamnuucaya inaan istaagno dhahay. Vero waaye perché wuxuu mamnuucayaa bes inaan maxaa la yirahdaa soosta dhigato. Okay? Vero waaye. In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso della macchina operatrice. Signalkan wuxuu noo ogolaanayaa inaan baasi karno macchina operatrice. Secondo me è falso waaye. Macchine operatrici. Non lo so. Il segnale raffigurato vale dalle ore 8 alle ore 20. Falso è perché vale per sempre. Ok? Il segnale raffigurato obbliga i motocicli servirsi della pista loro riservato. Ma cosa c'entra? Il segnale raffigurato signalka meesha ku sawiran obbliga wuxuu qasab uga dhigaa i motocicli mootooyinka a servirsi inay haystaan della pista loro riservata meesha ayaga loogu talagalay. Falso waaye perché signalkan wuxuu mamnuucayaa mootooyinka inay meeshaas galaan. Okay? Il segnale raffigurato indica un parcheggio autorizzato. Signalkan wuxuu noo sheegayaa meel parkeeja baabuurta la dhigan karo oo sharciyeysan. Vero waaye. Okay? Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli aventi una massa effettiva superiore quella indicata. Non è effettiva. Massa complessiva waaye. Non effettiva. Secondo me è falso. Davvero? Allora, il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli aventi una massa effettiva superiore a quella indicata. Sembra lo stesso, va bene, vediamo. Il segnale raffigurato posto su entrambi agli accessi della strada. Vero waaye perché entrambi labada dhinacba meesha laga soo galaa iyo meesha laga baxay. Vero waaye. Il segnale raffigurato vieta il transito alle trattrici agricole. Vieta wuxuu mamnuucayaa il transito inay mari karaan meeshaas alle trattrici agricole beeraleyda. Vero waaye. Il segnale raffigurato consente la fermata. Signalkan markaan aragno wuxuu noo ogolaanayaa inaan istaagi karno laakiin soosta nooma ogolaanayo. Vero waaye. Il segnale raffigurato consente il parcheggio dalle ore 7 alle ore 9. Ore 7 alle ore 9. Allora, consente wuxuu noo ogolaanayaa parcheggio
parcheggio in baabuurta la dhigto 7-9 qua falso è perché 7-17-20 u ogolaana, ok? 7-9 falso. In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di autovettura alimentata e metano. Autovettuurayaasha oo qaadanaya shidaalka nooca la yiraahdo metano waa loo ogol yahay oo dhahay inay maraan beer waaye barkeen. Meeshaas wuxuu mamnuucaya waxaa ka mamnuuca baabuurta walxaha qarxa ama gubta saaran bis, okay? Walxaha qarxa qaasatan. In presenza del segnale raffigurato un autocarro non può sorpassare veicoli a motore se sulla sua carta di circolazione è indicata una massa complessiva pieno carico superiore 3.5 tonnellate, vero waaye barkeen. Signalkan wuxuu yiri in presenza del segnale raffigurato signalka meesha ku sawiran un autocarro gawaarida xamuulka qaada non può sorpassare ma baasi karaan veicoli a motore gawaarida motor ku xiran se haddii uu dhahay sulla sua carta di circolazione carta circolazioniisa è indicata ay ku qoran tahay una massa complessiva a pieno carico markii laisku daro rarkiisa iyo culeyskiisa wixiisa superiore uu ka badan yahay 3.5 tonnellate, vero waaye. 3.5 tonnellate hadduu ka yaraa baabuurta kale waa baasi karaa laakiin 3.5 tonnellate hadduu ka badan yahay ma baasi karo, vero waaye. Il segnale raffigurato vale sia per le macchine agricole gommate sia per quelle cincolate, vero waaye. Il segnale raffigurato signalkan vale sidoo kale waxaa la rabaa inay ku dhaqmaan sia per le macchine agricole gawaarida oo beeraha ka shaqeeya kuwan waa moogtahay gommate oo taayirada ku xiran sia sidoo kale per quelle cincolate kuwa katiinada ku xiran, vero waaye. Okay, marba haddii beer uu ka shaqeynayo hadday rabaan taayiraha ku xirnaadaan hadday rabaan silsiladaha ku xirnaata ka mamnuuc waaye, vero. Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a motore trainati un rimorchio ai veicoli a motore trainati un rimorchio, vero waaye. Gawaarida moto oo rimorku ku xiran oo ka mamnuuca, vero waaye. Isjiidka, okay? Il segnale raffigurato se posto sul lato sinistro di una strada a senso unico vieta la sosta anche sul lato destra. No, perché sul lato destra? Falso è. Solo sinistra uu ka mamnuucaya destra ma mamnuucaya haddii uu ku yaalo yiri dhanka bidix midig xataa waa mamnuuca, falso è. Il segnale raffigurato indica autocarri in rallentamento non c'entra nulla. Autocarri gawaarida xamuulka in rallentamento oo tartiib u socdaan u dhahay, falso non c'entra nulla. Il segnale raffigurato indica che il parcheggio è emesso dalle ore 8 alle ore 20. No, non c'è scritto alle ore 8 alle ore 20, ma un parcheggio indeterminato, ok? Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sorpasso precedentemente imposto. Lo stesso, vero waaye. Marka hore wadadan waxaa ka mamnuuc ahaa baabuurta inay isku baasaan laakiin hadda wixii ka dambeeya way isbaasi karaan. In presenza del segnale raffigurato è vietato sorpassare anche agli autoveicoli di massa complessiva inferiore 3.5 tonnellate. Gawaarida tankooda iyo culeyskooda ka yaraya xataa 3,500 tan lama baasi karo yiri, vero waaye. Barke marba haddii uu 4 taayir leeyahay lama baasi karo. Il segnale raffigurato consente il transito ai ciclomotori a 2 rotte. Consente il transito ciclomotori, vero waaye. Barke meeshaas wuxuu ka mamnuucaya solo bicicletta, ok? Il segnale raffigurato vieta ad un motociclo di sorpassare una bicicletta. Wuxuu mamnuucaya mooto inay baasto baaskiil oo dhahay, barke falso è. In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di un autotreno lungo 10 metri, vero waaye. 10 metri waa la baasi karaa laakiin wixii ka badan lama baasi karo, ok? Muxuu yiri transito waa baasta maahan ilaa 10 metri waa uu gali karaa wixii ka badan ma gali karaan ka wada, okay? Wadadaas. In presenza del segnale raffigurato è permesso il transito ai ciclomotori a 2 rotte, vero waaye. Barke wuxuu ka mamnuucayaa gawaarida laakiin mooto way gali kartaa, okay? Permesso ongolaansho. Il segnale raffigurato indica il limite di velocità per tutti i veicoli. No,
velocità bertativa equal falso è ma alla fine dell'inviato di massima velocità. In presenza del segnale ravvisato è consentito il sorpasso dei motocicli. Moto in la passo alla Golia, dai, davvero? Moto in la passo alla Golia, ora. Motocicli in la passo alla Golia. Non ci credo. Il segnale ravvisato può essere posto sia nei centri urbani che fuori, vero? Perché la qui al Gra. In presenza del segnale ravvisato è consentito il transito agli autobus, vero? Marbato Sankabanen 6.5 tonelate. Tarinka oo maxaa la yirahdaa culeyskiisa, okay? Aan fiirino waxaan qaladnay waaba qaladnaan filaa. Laba su'aalaa qaladnay, okay? Kuwee waay? Su'aalaan qaladnay waa kuwee haddaan fiirinayno, okay? Alright, numero 2. Il segnale ravvisato indica che possono passare agli auto con carico alto. Carico alto xataa kaarikadiis wixiis marka laisku daraa la rabay, laakiin kaarig keliya uu dhahay gaariga dhinaca ka tagnay falso 29 mise 28. Motocicli waa la baasi karaa uu dhahay, ani falsa dhahay, beeray ahayd. Inta kale oo boosta waaye. Waxaan noo ballanaa casharkeen xiga. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.